hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka ayaa la sheegayaa in ceeb iyo fadeexad ay dhexda ka taagan yihiin kadib markii ay qirteen in ay heli waayeen xogta uraniumta Iran halka ay ku keediso amaba la dhigay, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in Iran ay si aad ah u bacrimisay uraniumta, iyadoo hadda Iran la sheegay in ay awoodo muddo 9 bil gudahood ah inay ku soo saarto bam nuclear ah. taas ayaana dhalisay walaac iyo cabsi oo ku saabsan amniga caalamka. haddaba warbixintan waxaan kugu wadaagi doonaa halka Iran ay uraniumteeda la sheegay inay ku keydiso iyo sababta ay keentay in hay-adaha sirdoonka Mareykanka ay isdhiibaan oo ay qirtaan inay heli waayeen xogtaasi, iyo sidoo kale waxa ay ka shaqeynayso Iran ee ah bacriminta iyo sida degdega ah ee ay u doonayso in ay soo saarto bam nuclear ah. anigu waxaan ahay Abdifataax Durdur, halka aad naga daawanaysaan waa Durdur TV. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad hore nagala joogtay waad ku mahadsan tahay. halka hoose ee commentiga ah inoogu reeb aragtidaada. mar kale soo dhawaada. dabcan warbixin ay daabacday wakaaladda wararka caalamiga ah ee Reuters ayaa waxaa la leeyahay wakaaladaasi waxay iftiimisay oo warbixintaasi ay ku daabacday xaalad cusub oo walaac badan dhalisay. walaacaasi ayaa waxaa la leeyahay waxa uu imaaday markii sirdoonka Mareykanka ay sheegeen in aan waliba la ogaan karin amaba aysan helin xog ku saabsan halka Iran ay geysay keedkeeda uraniumka. uraniumkan oo ah mid heer sare gaaray wuxuu dabcan leeyahay wuxuu si toos ah ugu habboon yahay in loo adeegsado sameynta hub nuclear ah, taas oo ka dhigaysa dabcan arrintan mid si weyn u saameyn karta amniga caalamka. Mareykanka markiisii hore wuxuu ku doodi jiray sababaha cunaqabateynta u saaray Iran dagaalkana loogu qaaday inay tahay Iran in ay ku howlan tahay bacriminteeda uraniumka si ay hub nuclear ah u samaysato. balse hadda taa waa laga soo gudbayba oo sirdoonkii Mareykanka ayaa waxay qiranayaan in ayba heli waayeen xog ku saabsan halka la dhigay uraniumtaas ee la bacrimiyay. sida Reuters ee warbixintu ay daabacday ku xustay, hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka ayaa waxay wajahayaan caqabado la xiriira la socodka dhaqdhaqaaqa nuclearka ee Iran, gaar ahaan marka ay timaado goobaha lagu keydiyo walxaha muhiimka u ah sameynta hub nuclear ah. aad ay ula socdeen marka hore sida ay sheegeen oo warbixinta ay soo saareen, balse gadaal dambe aad bay u adkaatay in ay ogaadaan ama xog ay ka helaan dhaqdhaqaaqaasi hubka nuclearka iyo waliba halka lagu keydiyo. waxaana la rumaysan yahay in Iran ay si qarsoodi ah u kala firdhisay amaba u kala wareejisay uraniumkeeda meelaha aan si sahlan loo gaari karin amaba loo ogaan karin, ayaana la rumaysan yahay in ay u kala qaybisay oo ay geysay. taas waxaa leeyahay waxay sii adkeysay dadaalada lagu doonayay in lagu xakameeyo barnaamijka nuclearka ee Iran. Iran marka hore qorsho wuxuu ahaa in la xakameeyo in barnaamijkeeda nuclearka ay bacrimiso oo ay nuclearka sameyso iyadoo laga yareynayo in ay bacrimiso ama hodmiso uraniumteeda. balse Iran dagaaladan iyo waxa lagu qaaday oo dhanba dhig jalaq uma siinin. keyd waxay sameysay oo aan cidna ogaan karin lana arki karin, taas oo si qarsoodi ah ay u sameysatay. haddana ay baqirteen Mareykanka in ay ogaan waayeen. warbixinta ayaa dabcan Reuters ay soo saartay ayaa waxay sidoo kale tilmaantay in ay isku dhacyadii iyo weeraradii military ee ka dhacay gobolka kuwaas oo la filayay in dhaawac weyn uu u geysan karo horumarinta nuclearka Iran ayaa waxaa leeyahayba wax saameyn ah kuma yeelan barnaamijkaasi nuclearka Iran. taasina waxaa dabcan arrintan la leeyahay waxay muujinaysaa in kaabayaasha nuclearka ee dalkaasi Iran ay yihiin kuwa si wanaagsan loo ilaaliyay, isla markaana leh awood oo ku sii wadan karo dalkaasi Iran howlahooda xitaa xilliyada xiisadaha militariga ay jiraan. waxaa la leeyahayba Iran maadaama dagaal jiha badan ah uu ku furan yahay oo Mareykanka iyo Israa'iil iyo xulafo kale ay dagaal ku soo qaadeen, hadda waxaaba arrintaasi la leeyahay Iran waa ay ka gaashaantay oo xitaa xilliyada xiisadaha militariga jira Iran dhig jalaq uma siin, hawsheeda waa ay wadan kartaa
oo bacriminteedii ayay kusii guda jirtay baa leeyahay. Qodobka ugu culus ay soo saartay Reuters qiimeynta ayaa waxay sheegaysaa in Iran ay ku dhowdahayba heer ay si degdeg ah u sameyn karto hub nuclear ah. ilo sirdoon ayaa sheegaya in haddii ay jirto go'aan siyaasadeed oo arrintaas lagu qaatay Iran ay muddo ku dhow 9 bil gudahood ku soo saari karto bom nuclear ah. tanina waxa ay sii kordhin kartaa amaba si weyn ay u kordhinaysaa walaaca laga qabo faafitaanka hubka wax gumaada ee nuclearka iyo tartanka nuclearka ee gobolka Bariga Dhexe. Dhanka kale, hay'adaha caalamiga ah sida hay'adda tamarta atomiga adduunka ayaa lagu wadaa in ay kordhiyaan dadaaladooda kormeer iyo dabagal, inkastoo ay horey u jireen khilaafaad u dhexeeya Iran iyo hay'adahaasi oo ku saabsan hufnaanta iyo ogolaanshaha kormeer buuxa. Arrintan ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan karta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Iran iyo dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka iyo xulafadiisa, kuwaas oo muddo dheer isku dayayay inay heshiisyo ku xakameeyaan barnaamijka nuclearka ee Tehran. Waxaa jira cabsi laga qabo in horumarkan cusub uu sababi karo xiisad siyaasadeed oo hor leh, cunaqabateyn dheeraad ah ama xitaa khataro militari. Gabagabadii, warbixinta ay soo saartay Reuters waxay muujinaysaa sawir mugdi ah oo ku saabsan jihada uu marayo barnaamijka nuclearka ee Iran, iyadoo la'aan xog cad oo ku saabsan uraniumka ee la hodmiyay iyo weliba awoodda dalkaasi uu u leeyahay inuu si dhaqsi leh u sameeyo hub nuclear ah, taas oo sii kordhinaysa walaaca caalamiga ah ee amniga iyo xasiloonida gobolka. Ujeedka Mareykanka iyo Israa'iil oo isgarabsanaya ay dagaalka u qaadeen Iran kolka hore ayaa waxa uu ahaa in ay xakameeyaan ama gabi ahaanba ay baabi'iyaan samaysashada Iran ay ku howlaneed inay samaysato hub nuclear ah, iyadoo Mareykanka iyo Israa'iil ay doonayeen inay ka hortagaan bacriminta uraniumka ee Iran ay markaasi bacriminaysay. Balse Iran ayaa arrintaasi gaashaan adag ka samaysatay kadib markii ay meelo aan la ogaan karin ama aan la arki karin ay ku keedisay hubkeeda nuclearka ama barnaamijkeeda bacriminta uraniumka. Waxaana la sheegayaa in xitaa dagaaladan iyo duqeymahan ee wadajirka ahaa ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ka geysanayeen Iran inaan wax saameyn ah ku yeelanba bacriminta uraniumka. Hadda Iran waxay awoodaa muddo 9 bil gudahood, waa sanad ka yar, in ay ku soo saarto bom nuclear ah. Adigu sidee ayaad u aragtaa? Halka hoose ee commentiga inoogu reeb aragtidaada. Aadna u mahadsantahay.